xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay magaalada Gaalkacyo ee gobolkaasi Mudug sida warkan uu ku faahfaahinaya Cabdiqaadir Jakarta. saddexdii cisho ee lasoo dhaafay ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug isagoo waday kulamo kala duwan oo la qaadanayay qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka magaaladaas iyo dhalinyarada ku nool Gaalkacyo. ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqasho ku tagay koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo oo ay kala maamulaan maamulada Galmudug iyo Puntland inkastoo booqashadii uu ku tagay waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland ay ahayd mid kooban isla markaana hadal badan ee ka dhalatay kadib markii xubno ka tirsan maamulka Puntland oo wasiiraha ay sheegeen in booqashadii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tagay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay ahayd mid foodo ah. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa filayaa in gelinka dambe ee maanta uu markaasi gaaro magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud isagoo barqanimada ama duhurnimada maanta ah kulamo markaasi la qaadanaya odayaasha iyo dhaqanka magaalada Gaalkacyo isla markaana uu kala hadli doono xaaladda Galmudug iyo sida doorasho midaysan uga dhici lahayd sidoo kalena uu ka qanciyo tabasho ay qabaan dadka ku nool gobolka Mudug. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta uu tago magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta maamulka Galmudug xarunta gobolka Galgaduud. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta safarka ku heliya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ilaaladiisa ayaa saaka waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb iyagoo sii diyaarinaya soo dhaweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo safar dhinaca dhulka ah ku tagaya magaalada Dhuusamareeb isla markaana kaga ambaxaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markii uu tago magaalada Dhuusamareeb wuxuu kulamo la qaadan doonaa madaxda Galmudug ee ku sugan halkaas isagoo kala hadli doona xaaladda Galmudug iyo sida u dhici lahayd doorasho loo dhanyahay. sidoo kale wararka la helaya ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu markii saddexaad dhinaca kale u tagi doono magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud si uu xaliyo tabashada qabanqaabada ama ay qabaan waxgaradka iyo odayaasha magaaladaas. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa 2 toddobaad in ka badan waxa uu ku sugan yahay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug si xal loo gaaro xiisadii ka dhashay doorashada la filayo inay ka dhacdo dowlad goboleedka Galmudug. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in isbedel weyn oo dhanka ammaanka ah laga dareemayo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sidoo kalena waxa uu sheegay in gobolka Banaadir laga howlgeliyay ciidamo badan oo booliska si amniga ay u xoojiyaan. maxamed cabdiraxmaan ayaa warkan dhameystiraya. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cusmaan Injineer Yariisow ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah loo diyaariyay laguna soo kordhiyay caasimadda magaalada Muqdisho kuwa ka howlgali doona. duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadani oo tiradoodu ay dhan tahay 3,000 oo askari loo diyaariyay caasimadda iyadoo oo tababar fiican la siiyay sida uu sheegay Injineer Yariisow. waxa uu intaasi ku daray in ciidamadani ay ka fog yihiin waxyaabaha ammaanka dooriya iyadoo oo sidii loo daadejin lahaa ammaanka magaalada caasimadda Muqdisho ay ku guda jiraan maamulka gobolka Banaadir. qaarkood oo in si howlgallo joogta habeen walba laga sameeyay dhinaca kale waxay ahayd in tababar xooggan la siiyay ciidankii booliska Soomaaliyeed oo aan rabnay inay runtii sumcaddii karaamadii ay lahaan jireen soo noqoto. waxaan ayaan rabaa inaan u mahadceliyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta gobolka oo runtii ayagana dad aad iyo aad nagala shaqeeyo har iyo habeen nala taagan. taas marka waxay keentay in la diyaariyo ciidan 3,000 oo runtii dhalinyaro ah tababar fiican la siiyay oo runtii ka fog waxyaalaha balwadaha tii marka waxaan sameynay ciidankaas iyo sidii loo daadejin lahaa amniga uusan ugu ekaan lahayn saldhigga booliiska keliya inay ciidanka joogaan. waxaan keenay wadooyinka qaarkoodna in checkpointiyo la sameeyo. waxaan keenay in xaafadihii la geeyo booliiskii. waxaa intaas dheer maamulada degmooyinka oo runtii shirarka amniga heer gobol heer degmo ilaa iyo heer wax la gaarsiiyey ayagana aan ku amarnay inay muhiim tahay inay wada shaqeeyaan hay-adihii amniga iyo maamulkii degmada. waxaan ku faraxsanahay qorshahaas aan dejinay inuu si wanaagsan oo miro dhal leh u socdo. weli caqabadaha jiro oo caasimadan ay uga duwan tahay meelaha kale. dhaqankaas marka inaan bedelnaa rabnaa waa meesha aan hadda u socon oo isleenahay isbedelkaas waa uu bilowday. dhaqanka la rabo waxaa in la bedelo qofku inuu yiraahdo aniga shabaabkii iyo dowladdii labadaba ma raba inaan dembi ka galo dhexdhexaada noqonaa.
haddii argagixiso iyo dowladdaadii adiga matalaysay adiga iska leedahay dhexdhexaad lagama noqon karo waa adoo dhahay gurigayga hadduu tuug soo galo aniga tuugayga iyo ilmahayga iyo xaaskayga iyo dhexdhexaadaan ka noqonaa macquul maaha. duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow ayaa hadalkaani waxa uu u sheegay warbaahinta dowladda xilli uu la hadlayay. faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose iyadoo dhinaca kale warar dheeraada laga helayo duqeyn ka dhacday degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe. warsoo saareena maxamed abuukar dabaasha ayaa wararkan soo koobay. wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose waxa ay sheegayaan in deegaanka la yirahdo kolbiyo uu ku yaala xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya ee isla gobolka jubbada hoose halka ay ku dagaalameen ciidanka Jubbaland iyo waliba ururka Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidanka Jubbaland ay ku leeyeen deegaanka kolbiyo waxaana goobjoogayaal halkaas ku sugan ay sheegeen dagaalku ahaa mid culus waqti badan qaatay. saraakiil ka tirsan ciidanka Jubbaland waxa ay sheegeen in ay iska difaaceen weerar kaga yimid dhanka ururka Al-Shabaab yeeshee lama oga ilaa hadda khasaaraha ka dhashay dhinacyada dagaalamo waxyaabaha khasaaraha soo gaaray. Al-Shabaab war ay ku daabaceen baraha ay warkooda ku faafiyeen internetka waxa ay ku sheegeen in weerarkaas ay ku dileen 3 ka mid ah askarta ciidanka Jubbaland balse waxaan weli la cadeyn karin saxaanshaha sheegashada Al-Shabaab ee ah in xubnahan ay dileen. ma jirto dhanka kale wax war ay ka soo baxay ururka wax war ah ka soo baxay maamulka Jubbaland. isla gobolka jubbada dhexe jilibna hadii aan eegnan halkaas waxa ka dhacay duqeyn diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen warar dheeraad ayaa ka soo baxaya duqeyn saacadihii la soo dhaafay ka dhacday degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe. duqeyntan ayaa ka dhacday xalay saqdii dhexe waxaana lagu soo waramayaa in lala eegtay 4 goobood ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab. goobaha la duqeeyay ayaa waxa kamid ah xarunta degmada saldhiga xarunta qaraxyada lagu diyaariyo iyo waliba xarumo kale ay ku sugnaayeen dagaalyahanada hubeysan ee Al-Shabaab. waxaana la sheegay in weerarkaasi lagu qarajiyay xubno badan Al-Shabaab. ciidamada Jubbaland iyo kuwa AMISOM ayaa la sheegay in qudhooda ay ka qayb qaadanayeen dagaal halkaasi ka dhacay deegaanka Lirabaar Sangooni oo hoostaga gobolka Jubbada Hoose. ku dhawaad 20 dagaalyahan ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeyntii lala bartilmaameysay xarunta degmada sida ay xaqiijeen ila lagu kalsoonaan karo. xubnaha la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu ku jiro sarkaal muhiim ah ee saldhigga degmada Jilib maamulaya magaciisa waxa lagu soo koobay Xasan Dheere iyo waliba ku-xigeenkiisa asna lagu soo koobay macalin cali ninkla yiraahdo. sidoo kale dadka duqeyntaasi ku dhintay ayaa waxa kamid ahaa dad u xirnaa Al-Shabaab oo halkaasi ku xirnaa oo tiradooda in lagu qiyaasay ilaa 5 qof oo duqeynta ay waxyeelo ka soo gaartay. dhinaca kale waxa jira khasaare xooggan in ka dhalatay weerar kale oo isla meel kale oo saldhig ah oo Shabaab ay ku sugnaan Jubbada Dhexe lagu qaaday inkastoo aan la cadeyn ilaa hadda khasaaraha ka dhashay. lama oga diyaaradaha dagaalka ee weerarkan fuliyaha sayeshe waxa loo badinayay diyaaradaha Mareykanka ay yihiin kuwa duqeynta ka fuliyay deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab. inta badan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa waxay duqeyn ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya oo ay bartilmaameedsadaan saldhigyada qarsoodiga Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada ay maamulaan. weli ma jirto war rasmi oo ka soo baxay Al-Shabaab oo la xiriira khasaaraha ka dhashay duqeyntan iyo waliba xubnaha hadda la shaaciyay in laga dilay. dhinaca kale Mareykanka ilaa hadda faahfaahin miisan ka bixin duqeyntan ka dhacday Jubbada Dhexe. wararka aan ka helayno magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo magaalo madax u wada ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Hiiraan maamulka Hirshabeelle waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka kala socdaan kulamo kala duwan oo u dhaxeeya xubnaha baarlamaanka ee maamulkaasi. kulamada waxaa la sheegay in salka ay ku hayaan khilaafka u dhaxeeya guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyadoo la sheegay in uu socdo muushin laga diyaarinayo guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi Cusmaan Barre Maxamed. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Hirshabeelle waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa qoraal waxa uu u diray xildhibaanada maamulkaasi waxaana uu ka dalbaday in si degdeg ah ay isugu laabtaan magaalada Jowhar si ay kulamada baarlamaanka dib ay uga bilowdaan. waxaana kulamo looga hadlayo arrimahaasi ay ka soconayaan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. dhinaca kale magaalada Beledweyne ayaa iyana waxa wararka ka imaanayo ay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed uu kulamo Beledweyne kula leeyahay qaar ka tirsan xildhibaanada iyadoo uu shalay kulan la qaatay qaar ka tirsan xildhibaanada si uu uga dhaadhiciyo
dhinaca magaalada jowhar wararka ka imaanaya ama kulamada ka soconaya ay uga hortagaan. xaalka baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid aan deganayn, waxaana xildhibaanada qaar ay warbaahintu ay marsiinayeen hadallo kala duwan oo ku saabsan furitaanka kulamada baarlamaanka ee maamulkaasi hirshabeelle uu hakiyey gudoomiye cusmaan barre maxamed iyo in uu jiro muushin ka dhan ah isaga. wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa la kulmay safiirka mareykanka ee safiirka mareykanka ee soomaaliya. ubax maxamed nuur ayaa faahfaahinaysa warkan. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa maanta oo jimco ah waxa uu kulan gaar ah la qaatay safiirka dowladda mareykanka u fadhiya soomaaliya. kulankan ayaa waxa ay uga hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen sida dib u habeynta hanaanka maaliyadda iyada oo la dix raacayo heshiiskii hay-adda IMF ee hagaajinta dhaqaalaha dalka. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid guul ku dhammaaday, islamarkaana uu rajeynayo in hagaajinta dhaqaalaha dalka uu sahli karo dayn cafinta soomaaliya. waxaan ku faraxsanahay taageerada uuna siiyey mareykanka ee ku aadan dib u hagaajinta dhaqaalaheena, xasiloonida maaliyadeed iyo rajada miro dhalka ah ee dayn cafinta soomaaliya, ayuu yiri wasiir beyle. dowladda soomaaliya ayaa intii ay jirtay waxa ay ku howlaneed hagaajinta hanaanka maaliyadeed ee dalka, waxaana madaxa u saarnay dalka soomaaliya ay ku dhow waxayna dalka soomaaliya ku dhowdahay in deynta laga cafiyo. halka warkaas aad kala socotaan waa Risaale FM Muqdisho Soomaaliya. ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyooday 33 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii qarax lala beegday 2 baabuur oo ka mid ahaa gaadiidka lagu waday meedka taliyihii hore ee magaalada Benghazi oo dhacda bariga wadankaasi Liibiya. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi oo lagu magacaabo Tarag El Khazar waa Al-Kharaz waxa uu wakaalada wararka ee AB u sheegay in dadka uu qaraxa haleelay ay kala ahaayeen 2 booliis iyo sidoo kale 2 shacab, waxaana dhaawac sidoo kale ay soo gaaray dadka ay isugu jiraan kuwa rayid ah iyo askar la socotay meydka taliyihii hore ee aagaasi. dalka Liibiya waxaa ka jira kooxo hubeysan oo kala fakra kuwaas oo dhashay markii wadankaasi laga tuuray hogaamiyihii mayalka adkaa ee Muammar al-Gaddafi ka oo muddo 40 sano dalkaasi maamulay. ugu dambeyntiina gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray goob ay ka socotay xaflad aroos oo ku taala bariga wadankaasi Afghanistan. ugu yaraan 6 qofood ayaa geeriyootay, 14 kalena waa ay dhaawacmeen iyadoo la rumaysan yahay in qofka waday gaariga ay ahaa ruux ka tirsan Taalibaanka wadankaasi ka dagaalama. afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in arrintan ay ka dhacday bariga Nangarhar ee dalkaasi Afghanistan, sida warbaahinada maxalliga ee wadankaasi ay soo warinayaan. ruuxan naftii halliga ahaa ayaa waxa uu isku sii diyaariyey goor sii horeysay oo saaka oo jimco ah aaga ay arooska ay ka dhacay, sida uu sheegay afhayeen booliiska u hadlay oo la yiraahdo Vays Maxamed Babakhir. ilaa hadda inta la soo wariyay waxaa jirta in dhaawacyadu ay suuragal tahay inay sii kordhaan, iyadoo dadka dhaawacyada qaar ay qabaan ay yihiin kuwa halisa. kooxda Taliban ayaa ka dagaalanta wadankaasi Afghanistan, inkastoo iyada aysan sheeganin weerarkan, haddana kooxda ISIS